wararkan maanta idin hayno waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqanaya bariga dhexe gaar ahaan qaybaha Carabaha aad u booqan doona sidoo kale waxa kamid ah Carabta oo shirweyne ku leh halka iyo wadanka loo yaqaano Masar shirkaas oo looga hadli doono sidii loo habeyn lahaa Gaza sidoo kale ninkii madaxa sirdoonka iyo ahaa ciidanka oo ka hadlay asaguna sidii loo qarxiyay aaladihii beejiriska iyo waxyaalo kale halkan iyo wadanka loo yaqaano Ruushka oo qabtay sirdoonno badan oo dadka qaar ay ku sheegeen 10 sirdoon oo afar rag yahay inuu qabtay qaarna ay ku sheegeen 4 dumar iyo ka badan sidoo kale wararkeena waxaan idinku haynaa wadanada Carbeed gaar ahaan kuwa xogaa awoodaha isbidaya oo ku tashaday sidii ay isaga dhicin lahaayeen reer galbeedka ama u difaaci lahaayeen Mareykanka Gaza iyo Falastiiniyiintan masaakiinta ay muddada la diray la xijiyay tirayirida loo sheegtay iyo inaysan hub badan haysan wadanada ugu tunka weyn Carabta oo ay kamid yihiin Turkiga iyo Masar oo awoodoodii banaanka soo dhigay oo si cad oo qayaxan oo laalaab iyo leexleexad lahayn u sheegay in ay difaaci doonaan haddii xaaladdu ay ka fursan kari weydo sidoo kale Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo wadano kale oo ayaguna hadda dareemaya xogaa culaysa si ay arrinkaas culayska u yareeyaan yiri arrinkaas macquul ma ahan ayagoo bartooda jooga ayaanu dhaqaalaha iyo waxay u baahan yihiin u qabanayna sidoo kale waxyaalaha aan ognahay ama aan aragnay waxa kamid ah in markan midowgu uu soo badanayo Carabta iyo heshiis soo dhawaanaya Iran oo ayaduna awoodaheedii kordhin ku haysay muddadanba oo maalin walba qori cusub iyo hub cusub ayaduna tijaabisay markan dhinacyo badan ka eegno arrimahaas waxa ka soo baxaya in horumar badan oo aan la taaban karin cadadkiisu inta uu leeyahay ay jiraan marka waxaan idin leeyahay ku soo biira barnaamijkeenan socotada noqon doona